سلامة وولي عدالة بارمنا kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amartay in la soo xiro taliyaha saldhigga booliiska ee garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. ciidamada Somaliland ayaa waxa ay xabsiga ay u taxaabeen ganacsade u dhashay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sool iyo Sanaag. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan barnaamijka nuxurka dhacdooyinka. aan ku bilownay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amartay in maxkamadda uu hor yimaado taliyaha saldhigga booliiska garoonka Aadan Cadde oo furin waayay ay tiri amar maxkamadeed oo ahaa inuu joojiyo dhismaha ka socda dhul lagu muransan yahay oo muran ka taagan yahay oo ku dhex jira xayndaabka garoonka diyaaradaha kaasi. taliyaha saldhigga booliiska ee garoonka Aadan Cadde ayaa iska diiday fulinta amarka maxkamadda. maxkamadda gobolka Banaadir bayaan ay soo saartay ayaa waxa ay ku amartay ciidanka booliiska khaasatan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya in ninkaasi la soo xiro gacantana loo soo geliyo maxkamadda gobolka Banaadir si ay ugu qaado eedda loo haystay waxa uu u diiday amarkii maxkamadda ugana hor yimid inuu joojiyo dhulka lagu muransan yahay ee la isku haystay ee ku yaala gudaha xayndaabka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. bariyihii ugu dambeeyay waxa qayladaan xoog leh ay ka jirtay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo dad badan ay ka cabanayaan in dhulalkoodii iyo waliba hantidoodii la boobayo. qaar ka mid ah dadkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa hadda kursiga aad dhaqaalaha ku raadinayso oo hantida aad ku raadinayso aniguba waa u baahanahay haddaan arko in hanti lagu helayo madaxtooyadan weeraraya waana fariisanaya yaa iga hor istaagaya sababtoo ayaga dhanba tuuga ah ayuu jagooyinkii inta u dhiibay madaxweynuhu diyaarad buuba iska saaran yahayba xilkii baawarkii iyo lacagtii baan isku darsaday haddana dhulkii baan dhacaya iyo bariiska isma maqlaan ismana arkaan warkaan amar qaataan dadka masaakiinta la dhacaya xaqan waxaan u leenahay waxaan inaan ku dhimanno oo ku dagaalano waxaan nahay waa ka daalay baalkii cabaso waxaan cabanayna ilaa 2016 dawladii hore Xasan Sheikh midaan dambe oo farmaajo waa hor fariisanay farmaajo waxna waa la sii waayay waxna nagama dhicin Xasan Sheikh baa soo bedelay dhac baa lagu bilowday dhulkayagii baa la dhacayaa waa la gadanhayaa xildhibaanaa qaadanhayaa war yaa muslina war culumadii aaway war sanataradii aaway war xildhibaanadii aaway war ummadda Soomaaliyeed baan nahay war wiil yaa la maqlahaya war dhulkayagii baa la dhacayaa dhulkayagii ciidamada sirdoonka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ka afduubay ganacsade u dhashay beesha Warsangeli ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Axmed Sheekh. sida la sheegayo ganacsadaha ayaa waxa uu warshad kalluun oo malaayiin dollar ku kacaysa ku maalgashaday ama ka maalgashaday magaalada Berbera. sababta loo xidhayna waa lacag baad ah oo ay korneylka iyo xulufadiisu ay ka doonayaan ninkaasi inay ka qaataan maadaama xaaladdu xilligan ay ku adag tahay Somaliland oo dhaqaale darro ay la ciirciirayso. intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena nuxurka dhacdooyinka oo kala socoteen channelka nuxurka dhacdooyinka. fadlan haddaad ku cusub tahay barahayaga bulshada nagu soo biir oo page-ka iyo waliba YouTube-ka labadaba follow iyo subscribe noo saar. mahadsanid.